munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta bangiga dhexe ee Soomaaliya ayuu maanta si rasmi ah xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay bangiga dhexe iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo hanti-dheerka guud ee qaranka gudoomiyaha hore bangiga dhexe Bashiir Ciise Cali oo ka hadlayay waxyaabihii u soo qabsamay bangiga dhexe sanadihii la soo dhaafay ayaa sheegay inuu haatan marayo xilligii ugu habboonaa maadaama dhaqaalaha dalka uu sameynayo dib u kabasho fiican bangigu hadda wuxuu jiray 10 sano buu jiray tan iyo markii dib loo furay 10kaasna hawl badan buu qabtay shaqo badan buu qabtay natiijooyin wanaagsan buu keenay xagga amaanada dadka xagga awoodda iyo moogtay hawl qabadka xagga waxa lagu aaminay oo lacagta uu hayay iyo waxaas oo la oran karo moogtahay weligeed lacag iyo dhaqaale aan bangiga soo gelin ama aan loo dhiiban buu maanta u hayaa bangigu gudaha iyo dibadba xiriir buu ku leeyahay bangiyo badan buu wuxuu siiyay oo hadda 10 gaaraya wuxuu siiyay laysan iyo uu siiyay oo qaar la furay iyo qaar hadda la furaya inta bale gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa uga mahadceliyay shaqadii uu soo qabtay gudoomiye Bashiir wuxuuna sheegay inuu ka shaqeynayo sidii dalkan loo gaarsiin lahaa isku filnaansho dhaqaale aniga farxad bay tahay in maanta bangigii oo maraya meel wanaagsan xilli aad u adag soo maray laakiin kabasho badan sameeyay u baahan baritaar iyo in waxa ka dhiman yar lagu kordhiyo in maanta aniga uu igu soo wareejiyo gudoomiyaha hore Bashiir aad iyo aad bay sharaf igu tahay waa qoriisu dhiib shaqada qaranku hawlaha qof waliba maalin buu hoggaanka hayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nagu garab galo dhinaca kale gudoomiyaha cusub ayaa kulan isbarasho hal qaatay qaar kamid ah shaqaalaha bangiga dhexe sidoo kalena lagu sagootinayay gudoomiyihii hore ee bangiga waxaana guud ahaan lagu bogaadiyay shaqada bangiga dhexe u haayo ummadda Soomaaliyeed Maryan Cabdullaahi gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ayaa sheegtay in ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub shaqaalahana ay yihiin dhalinyaro xirfad u leh shaqada bangiga dhexe yaasan weeye dad shaqadooda yaqaano weeye dad maxaa la yiraahdaa la soo tababaro waaye dad aqoon fiican u leh shaqada bangiga waa lagu soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay inaad noo timaado adiga oo ah qof aan naqaano oo ay shaqana dhex martay gudoomiyaha cusub ee bangiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa ballan qaaday inuu shaqo hufnaan leh uu la imaan doono hoggaan ahaan waxaan idinka ballan qaadayaa inaan noqdo hoggaan shaqo focuskiisu yahay ama ahmiyadda koowaad in wixii la soo qabtay wax lagu daro in qof kastoo idinka midana aan u sinaado ama ay ii sinaadaan dadkuna aan ku qiimeeyo shaqada ay la yimaadaan Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho